madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa saaka gudoomiyay fadhiga golaha wasiirada ee toddobaadkan fadhigan oo ah kii lixaad ee sanadkan amuuraha iyo go'aanada ka soo baxay waxa warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu yiri fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa uu isku raacay mashruuca dhowridda xuquuqda ubadka aan wali qaan gaarin mashruucan xeer ujeedadiisu waxa ay tahay in la meel mariyo xeerar sugaya xuquuqda ubadka aan qaan gaarin ee dalkeena oo isaga horay u saxeexay axdiyo caalami ah hirgelinayana xeerar fara badan iyo istaraatiijiyada dhammaantoodba daryeelaya xuquuqda ubadka waxaana loogu talagalay in uu ubadku u suurageliyo nolol iyo kobcooga muruqa iyo maskaxdaba waana mid ay dawladdu ay rabto in ay ku sugto xuquuqda guud ahaaneed ee ubadka iyo waajibaadka ka saaran waxa sidaasi darteed xeerkani uu ubadka ku jira xaaladda nugul oo halis u ah noloshooda iyo fal kaste oo cawaaqib xun ku reebaya caafimaadkooda in laga samata bixiyo ah xeerkani waxa uu qayb ka yahay xeerarka dalka loo dejiyay ee daryeelka guud ahaan xuquuqda bini aadanka iyo gaar ahaan bulshada qodobka labaad ee fadhiga lixaad ee golaha wasiirada isku raacay waxa uu ku saabsan yahay xeer u dejinta soo saarka korontada oo looga gon leeyahay dad gaar ah in ay ku tallaabsadaan taasi waxay xukuumaddu uga gon leedahay in dadweynuhu u suurageliso in uu ka haqabeelo oo uu helo koronto ku filan soo saarka korontada ee dadka iskood u shaqaysanaya waxay howlgali karaan oo keliya kolka ay helaan ruqsad isbedelka ujeedooyinka laga leeyahay waxaa ka mid ah in kor loo qaado soo saarka korontada si ay u daboosho inta loo baahan yahay in hoos loo dhigo qiimaha korontada suuragelinaysana inuu ka faa'iideysto dhammaan dadweynuhu in loo adeegsado tamarta waarta iyo in ugu dambeyn in dalkeena laga helo koronto ku filan oo ka jawaabaysa baahida mashaariicda hore u marka gaar ahaan kuwa warshadeynta qodobka saddexaad ee fadhiga golaha wasiiradu uu saaka meelmariyay ayaa ah mashruuc xeer oo ku saabsan xeerarka soo saarka koronto tayo leh oo waafaqsan baahida kala duwan mashruucan xeer waxa uu dhigayaa in lagu tallaabsado barnaamij lagu talagalay in hoos lagu dhigo kharashka isticmaalka korontada iyo dhinac kale kormeerka joogto ah oo lagu sameyn doono soo saarayaasha korontada ujeedada mashruucan xeer waxa ay tahay buu yiri wasiirka arrimaha dibadda in uu suurageliyo shaqo abuur iyo isticmaalka tamarta waarta oo sida ku xusan qorshihiisa soo saarka tamarta ee dhigaya in jamhuuriyadda Jabuuti ay 100% isticmaasho tamartaasi sanadka 2020 fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa uu isku raacay mashruuc dhagalay oo ay soo jeedisay wasaaradda shaqada oo ku saabsan lacagaha howlgabeenada dhagalaydan waxay wax ka bedelaysaa nidaamka xisaabta lacagahaasi sida ku xusan qodobka 3 ee xeerka 17aad ee ku saabsan kordhinta da'da howlgabka waxay sheegaysaa oo kale in imika wixii ka dambeeya in qofka da'diisu gaadhay 15 sano ee raba in uu ka fadhiisto hawsha ee waliba shaqeeyay 25 sano amba 20 sano marka qofkaasi uu yahay haweeney xaasley ah waxa ka go'aysa 2% lacagta uu heli lahaa hadii uu baxo muddada ku xusan xeerka qodobka shanaad ee la isku raacay fadhiga golaha wasiirada ee saaka ayaa ah dhagalay ku saabsan mudane Maxamed Axmed Suldaan oo loo magacaabay agaasimaha guud ee xafiiska Jabuuti ee xaqa curida ee wasaaradda arrimaha diinta dhaqanka iyo awqaafta wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa saaka fadhiga golaha wasiirada uga waramay socdaalkii shaqo uu ku tagay intii u dhaxaysay 25 ilaa 27 Febraayo magaalada Washington halkaasi oo uu kaga qayb qaatay fadhiga koobaad ee ay yeesheen labada wadan ee Djibouti iyo Mareykanka
kulankaasi oo ay u joogeen mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda waxa uu ka dambeeyay booqashadii uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku tagay dalka Mareykanka bishii May ee sanadkii hore ee uu la kulmay madaxweyne Barack Obama. wada hadalka ay yeesheen labada hogaamiye waxa uu ku saabsan yahay sii xoojinta iskaashiga u dhaxeeya labada wadan gaar ahaan xagga dhaqaalaha, ganacsiga iyo gaashaandhigga. intaasi kadib wasiirka caafimaadka ayaa ka warbixiyay shirkii sagaaleed ee guddiga hagida ee dalalka ku buuxay ururka iskaashiga islaamka intii u dhaxaysay 24 ilaa 26 February ee lagaga hadlay caafimaadka oo ka qabsoomay dalka Turkiga. wasiirka arrimaha islaamka, dhaqanka iyo awqaafta ayaa saaka fadhiga uga waramay shirka uu kaga qayb qaatay magaalada Washington intii u dhaxaysay 18 ilaa 19 ee lagaga hadlay ka hortagga xagjirnimada. Xogaha dowladeedka istaageersiga